inkastoo mulkiiluhu mowla weyne uu yahay arlada mugaaweyn meel kastaba adduunyada ummad baa makaan iyo ulahmaashi nololeed aniguna masnada iyo marinka aan ku leeyahay mahuraankii weeyaan afrikada madowga iyo muruq lagu tilmaamaan gees ooga sii mudhay inkastoo maraakiib macdantayda lagu raro inkastoo malaygii amarli ila muudsaday mawjad iyo baddaydii inkastoo macaash iyo rag macaan ku iibsaday meelo badan dhulkaygii cadow soohdin mariyo magaalooyin qaateen inkastoo magoolkii dhirta iyo mankeedii rag mashiina geliyo dhuxul miidhan laga dhigay inkastoo malaayiin dhalinyaro muhiim ahi ku madheen tahriibko magafuhu badhaystaan inkastoo mudnaantii maanta reero laga dhigay oo maamul goboleed midnimadu ka weyn tahay mar kastana itaal iyo muruq laysu sheegto taagyare miskiin ahi lagu dilo maxaa tahay oo birimagaydii masarey haweenkii laga toogta madaxo la kufsada mulaaxiyo hablihii mudnaan jiray ee in ay miraadaan ragumowd ka xigi jiray wax intaa mushkiladood ka mugweynayaa jira oo mirarka goodkiyo maska eebadiisiyo miciyaha libaaxiyo nooga daran mariidko dheecaan miirataa jira muuqaal islaam laha muslim beena sheegtaha afka mara ku duubtaha malag iyo raq joogaha kuwa laaya maatida intay madaxa duubtaan kuwa laaya maatida intay madaxa qariyaan miinada u aasee meydka iyo dhimashada kuma caasho dhiigga mooradeenni joogo mabda'ooda kaan rabin madaxay ka toogtaan bal xasuusta milicsada maalintii halaagee sooba loogu magacdaray miyaabaanilaawa murugtiyo dhibkeedii miyaabaanilaawa waxa aabba maydiyo maamiya carruurteed maqaarkeedii ololeen miyaabaanilaawa waa maalin qiiro taariikhda meel iyo barmadow kaga taal maantana maxaa xiga dhalintaa muraadli iloo dhigaayo miinada hooyada masruufka iyo manfac raadinaysay meydkeedu wadhan yahay haddii aan midnimo jirin talana meel la wada dhigin midba uu mid necab yahay cadowgeenna muruq iyo maaro looma heli karo haddii aan midnimo jirin talana meel la wada dhigin midba uu mid necab yahay cadowgeenna muruq iyo maaro looma heli karo وعبد الله الشيخ أحمد عرفات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.